Asalaamu calaykum walaalayaal waxaan sii wadnaa weli xaaladii ku barashadii conditional statementska sida if else switch statement waxay la mid tahay sida if statement waxaana loo isticmaalaa siyaabo badan marka maanta waxaan ka hadlaynaa arrintaas marka PHP switch statement waxaa loo isticmaalaa in lagu qiimeeyo xaalad hal PHP variables iyadoo lala barbar dhigayo variable kale kadibna programku uu fulinayo shuruudaha la xiriira qiimeynta variablekaas marka wax kale ma aha switch statementigu waa xaalado badan ayaa la kulmaysaa oo laleeyahay xaaladan misalan qofkan variablekan wuxuu declare garanaysaa marka waxaad qiimeynaysaa haddii xaaladaas mid jirta yahay waxaad qoraysaa ama screen ku qoraysaa ama programku uu action ku qaaday ay tahay xaalad la xiriirta arrintaas marka waa muhiim marka bal tusaalaha soo socda ayaan si fiican ugu fahmi doonaa haddii ilaahay yiraahdo bal horena u socono sida halkan ka muuqata waxaa switch statement loo qeexaa marka hore waxaad qoraysaa switch then waxaad furaysaa qaanso fallaar maxaa la dhahayaa qaanso fallaar ayaad xiraysaa ereyga la qiimeynayana waxaa la dhex gelinayaa maaragtay badanaa labadaas qaansadood dhexdooda variable la qiimeynaya marka xaaladda la xiriirta marka variablekaas waa case one waa marka waxaa ku xig wixii actionkii la qaadi lahaa haddii xaaladaas ay programku noqon weydo ay been noqoto dan wuxuu u gudbayaa programku xaaladda ku xigto oo xaaladan ah marka muhiim wey inaan fahmno tanna waa xaaladda ugu dambeysa bal iyadoo tusaale ah aan si fiican u aragno si aan u fahmno sidaasi ka badan sida halkan ka muuqataa waxaan just qoray program yar oo ku saabsan maaragtay program yar oo qiimeynaya player name wax kale ma aha wuxuu qiimeynayaa ciyaartooy misalan program waxaa lagu yiri qor ku saabsan niman oo footballers oo maaragtay dadkan Europe banooni ka ciyaara sida Messi, Neymar iyo Hazard marka programku wuxuu qiimeynayaa ciyaartooy marka wuxuu leeyahay which player name macnaha wuxuu qiimeynayaa playerkii xaaladii la qiimeynaya waxay tahay markan waa player nameki marka player nameki marka waxaa leeyahay hadduu player nameka caseka uu yahay Messi magaciisu noqdo Messi then waa ciyaartooy u ciyaara Barcelona haddii xaaladaasi ay been noqoto oo programkeenu u gudbo xaaladda labaad oo sida tan Neymar marka waxaa leeyahay case hadduu xaaladda ciyaartooyga laga hadlayaa magaciisu yahay Neymar then waa ciyaartooy u ciyaara PSG haddii xaaladdu ay maaragtay ciyaartooyga kale oo ku saabsan ay tahay Hazard then waxaa muhiim ah maaragtay ciyaartooygaas inuu yahay ciyaartooy u ciyaara Chelsea iyo xaaladda ugu dambeyso ah haddii ciyaartooyga aanan sheegin macnaha kooxda haddaanan xaalad condition u sameynin ku aadan xaaladaas then programku wuxuu aadayaa hoos oo wuxuu leeyahay ciyaartooygu waa ciyaartooy u ciyaara koox kale macnaha annaga maanan xaqiijin ciyaartooyda kooxda u ciyaara laakiin inta kale sida Messi, Neymar iyo Hazard kulligood waan muujinay kooxa ay u ciyaaraan annaga program ku qornay marka hadduu garan waayo oo waxa annaga aan ku qorin meesha uusan ku jirin marka programku wuxuu u boodayaa meesha ugu hooseyso oo ah waa ciyaartooy u ciyaara koox kale marka bal aynu qeexno maaragtay sida structure-ka maaragtay switch statement uu u shaqeeyo sidii aan horeba ayaanadeeda usoo sameynay marka sida halkan ka muuqata mar walba waxaa muhiim inaad fahamtid xaaladda la qiimeynayo kor meeshaasay kasoo galaysaa marka markay xaaladan marayso xaaladda koowaad tahay hadduu programku run yahay wuxuu u gudbayaa meeshan marka sida falaarta ku cad xaaladda hadday run tahay wuxuu aadayaa programka shuruudda u fulinaya waxay noqonaysaa shuruudda halkan ku sawiran haddii xaaladda taasu been tahay oo xaaladda programku ay been noqoto wuxuu u gudbayaa xaaladda ku xigta hadday xaaladaas run noqotana programku wuxuu fulinayaa xaaladaas oo ku xigta ah sida falaarta noo muujinayso xaaladda programku fulinayana waxay tahay xaaladan waa tan meeshan halkan waxaa kaloo haray hadday xaaladani been noqoto oo tan run noqon weydo halkan been usoo gudbo programku wuxuu imaanayaa xaaladda then sidoo kale sidii kuwii horeba macnaha uu execute garaynaya programku wuxuu shuruudda fulinaya waxay noqonaysaa xaaladan halkan ku qoran marka markuu programku fuliyo xaaladan ogow waa case Messi oo kale wuxuu leeyahay programku waa ciyaartooy u ciyaara Barcelona hadduu caseka uu noqdo Neymar then programku wuxuu leeyahay waa ciyaartooy u ciyaara PSG haddii Hazard uu noqdo then wuxuu yahay ciyaartooy u ciyaara Chelsea marka haddii programkan qorayna ama casharkan qorayna ay gabdho Soomaaliyeed maaragtay wax baranayaan waxaan u maleynayaa xoogaa inay fursad fiican tahay ay ku bartaan maaragtay ciyaartooyda adduunka si u ciyaaraan iyo magacyadooda iyo kooxda u ciyaaraan marka igana raali ahaada haddii example uu noqdo example aan ku habboonayn kan bal waxaan gelaynaa programkii insha Allah
inaan qorno oo maaragtay aan tusaale idin muujiyo haddii ilaah yiraahdo bal aan u guda galno. walaalayaal waxaan halkan kusoo koobiyey koodkii yaraa oo aan hadda slide-ka kasoo qaaday. marka sida programkan aad uga jeedaan waxaan qiimeyneynaa player name. player nameka wax kale maaha, waxaan qiimeyneynaa cayaartooyda. marka programka annaga waxaan u sheegnay haddii cayaartooygu maaragtay uu magaciisu yahay cayaartooygan ka hadlaynaa oo magaciisu yahay Messi, then waxaan meesha screen ku qoraynaa waa cayaartooy u ciyaara Barcelona. haddii cayaartooyga magaciisa programku soo qaadanaya uu yahay magac macnaha oo sida Neymar u qoran, then waa cayaartooy u ciyaara PSG oo ah kooxda uu Neymar u ciyaaro. haddii magaca meesha kusoo haro uu ku qoran yahay Hazard uu yahay macnaha cayaartooyga meesha ku qoran Hazard yahay, then waxaan programku sheegayaa waa cayaartooy u ciyaara Chelsea. marka defaultka wax kale maaha, meeshan defaultka uga jeedaan wax kale maaha, wuxuu cadeynayaa haddii programku ila naga waa u sheegnay in Messi uu yahay cayaartooy Barcelona yahay, Neymarna uu yahay cayaartooy u ciyaara PSG, Hazardna uu yahay cayaartooy u ciyaara Chelsea. marka defaultka wuxuu yahay haddii programkaada adiga aadan specification sameyn oo aadan qiimeyn, masalan kasoo qaad hadda aan maaragtay programka aan cayaartooy aanan meesha ku qornayn u sheegno, then programku wuxuu toos u aadayaa hoos oo wuxuu leeyahay waa cayaartooy uu ciyaara koox kale. marka bal tusaale aan soo qaadano, masalan hadda waxaan nidhi waa Messi. marka haddaan refresh ku sameeyo sida halkan ku cad aad uga jeedaan sida programkeena halkan ku cad aad uga jeedaan hadda programkeena wuxuu ku aadan yahay meesha ay ku qoran tahay Messi oo uu leeyahay Messi ayaan ku nirin player nameka waa Messi. masalan kasoo qaad programkeen tijaabinayna waxaan leenahay noo sheeg adiga player nameka. programku markuu soo socdo wuxuu imaanayaa halkan player nameka ilaa waa Messi mid jira halkaas uu fiirinaya, wuxuu leeyahay okay case-kan waa maxay, waa Messi. hadduu Messi yahay waa inaan screen ku qornaa cayaartooy ciyaara Barcelona, waana wax halkan aad uga jeedaan oo ku qoran waa cayaartooy ciyaara Barcelona. haddaan halkaa ku bedelno Neymar tusaale ahaan, aan control S aan marka page ku soo noqono refresh ku sameyno, waxaa muhiim ah in programku tago meesha ay ku qoran tahay Neymar waa cayaartooy u ciyaara PSG ah oo ah sida halkan ku cad koodku wuxuu imaanayaa meeshan ku qoran tahay Neymar, wuxuu leeyahay Neymar waa cayaartooy u ciyaara PSG. sidoo kale haddii aan hadda kan bedelno oo ku bedelno Hazard kasoo qaad, Hazard say u qoran tahay waa inaan qorno, haddii kale programku ma fahmayo. marka haddaan Hazard ku qorno programku wuxuu waa inuu noo sheegaa inuu yahay waa cayaartooy u ciyaara kooxda Chelsea. marka haddaan halkan tijaabino wuxuu leeyahay ujeedan waa cayaartooy u ciyaara Chelsea. marka defaultka la sheegayo oo koodkeena uu muujinayo halkan defaultka goormuu soo baxaya haddii aanan masalan kasoo qaad programka aan u sheegno cayaartooy jira laakiin waxaa la dhahaa aanan programkeena uusan maaragtay liiska ugu jirin. masalan kasoo qaad Aguero kale, Aguero wuxuu ciyaaraa koox la dhaho Manchester City. masalan haddaan aniga meesha ku qoro oon iraahdo marka programkii aan iraahdo bal emoji, waxaa qasaba Aguero wax programku noogu jira maaha, programku wuxuu imaanayaa defaultiga waa inuu yimaadaa. marka haddaan tijaabino oo aan refresh dhahno waa ujeedaa meesha waxaa kusoo qormay waa cayaartooy u ciyaara koox kale, because annaga ma aanan caddaynin, ma aanan u sheegin programka inuu Aguero ka yimid yahay kooxda maxaa la dhahaa Manchester City. marka muhiim waxa weeye inaad fahamtaan switch statement si loo isticmaalo. marka tusaale intaas noogu filan alxamdulilah rabbil caalamiin. marka waxaan rajeynaya in ilaahay maaragtay si maaragtay khayr qabto easy aan igu sharxay haddii waxba aysan kiyaar aynin ama inay caddayn. marka programma soo socda ayaan tusaalooyin badan siin doonaa haddii ilaahayna waxaan isku arki doonaa casharka dambe. mahadsanidin.